السلام عليكم صباح وناسن أم هبين وناسن أم مالو وناسن هاد بوقت غير انتهى سؤال أيا وحا هلكا كتاغن sida calaamadaha lagu garan karayo qofka guurka laga reebay liajil sixir loo sameeyay daraadeed oo loo yaqaano sixir tactiil الزواج ama si kale marka uu dhigno carabigu wuxuu yiraahdaa kayfa yatimu sixir tactiil الزواج qofkan saaxiroolaha loo tagayo sidee buu qofkan kale ee la xasdaya ee la cadowsanaya in aan horumar yeelanin loo u sixiraya isma أول شيء qofka xaasidka ah adigu ku xasdaya ee dhaqarta badan wuxuu u tagayaa qof saaxiroolo ah wuxuuna ka dalbanayaa inuu u sameeyo sixir heblaayo nin hebel gabadhiisii sixir igu samay buu dalbanayaa marka sababta uu dalbanay maxay tahay si aynan u guursanin si nolosheedii aynan u guursanin markaas wuxuu ka dalbaya qofka saaxiroolaha wax dalbaya markaan saaxiroolaha wuxuu dalbanaya oranaya ninkan xaasidka u tagay uu ka dalbanaya magaceedii iyo magaca hooyada bal hada u fiirso magaca aabaheeda lama raadinayo magaca gabadha iyo magaca hooyada buu weydiinaya saaxiroolaha inuu u keeno iyo wax kamid ah raadkeeda satanteedii oo kale dharkeedii oo kale kabaheedii oo kale ama walow weelasha ayda isticmaalaysa ha noqdo yani wax raadkeeda kamid ah raad markii la yiraahdo waxa soo gali kara saacad qofku uu xiranayo dhar uu xiranayo tamaheedii shay walba isticmaali kartaa qofka ma garanaysa laga rabaa waxa marka uu qofkan saaxiroolaha inta markii uu u keeno ninka xaasidka uu sameynaya inuu sixirka uu sameeyo ugu wuxuu helay qofkii la sixirayay magaciisii magaca hooyadeedii raadkeeda wax kamid ah astaamaheeda wax kamid ah raadadkeedii intaas uu keenay ninka xaasidka cadowga ah ee gabadhani guurka u diidan ee cadowsanaya waxa laga yaabaa gabdho fara badan in nin ay guurka dalba oo ka soo dalbo ka bacdina ay ugu bodo ku kale ay ka raacdo ay ugu bodo ka kale ay ka raacdo ugu bodo waxaad ogaataa gabar yahay rag iskoon ma aha qofkii aad guur ugu bodo waxaa laga yaabaa inuu qalbiga ka xanuunsado ishiisa ay kusoo gaadho halkaanu kaaga tago ishan waa loo dhintaa laakiinse waxaa ka daran qof inta guur isku soo qaadeen oo qalbiga kuu furay aad ugu booday ka bacdina xaasinimo qalbigiisa ay gashay ee ku cadowsaday ka bacdina ee saaxiroolo u tahay ku sixiray ilna way kugu dhicin sixirna waa kuu labaynayaa ilaahay inuu kaa furdaamiyo kaa furfura mooyaane sixirkaas oo kale waa halisteeda ay leedahay mustaqbalkaad ku waaysa marka gabdhaha waxaan ugu naseexayna waxay tahay raggan faraha badan kan shukaanso kan la soco kan la hadal kan lacag ka qaado kan intaas samay kan waqti u samay kan waqti kale u samay ka jooga zamanka lagu jiro hadeertaan dadka qulubtooda ma wada wanaagsana qofba haddaa dhibaato kasta ku samaysid waxba aan ku arkayno iska socono aakhiran u socda maxaa waxba u arkamaya ilaahay dartiisa noo saamaxay oranaya qofna uu ka cadgoosanay wuxuu isku day inuu ku dhibaateeyo ku dilo nafta ku dhaafiyo marka halisteeda ay leedahay qofka in badan oo badan idinka aad la wadaagaysaan noloshiina aad doonaysaan in badan iska fiiriya tan kale baan u sheegana way qofka marka weerka saaxiroolo wuxuu sameeyaa inuu wixii gabadhani lagu dhibaatin lahaa oo sixir uu sameeyo wuxuuna marka uu wakiilanayaa sixirka uu sameeyay ilan saaxiroolaha waxa la garanayaa markuu sixirkan uu sameeyo jimbu kaashada oo khaadim la yiraahdo khaadim la yiraahdo isticmaalaya si sixirkaasi qofka loo maleegayo oo jirkiisa ugu ilaaliyo ama hal jin wax ka badan ilaa 5 ilaa 10 ilaa 100 jin buu ku diraya leena inta jini ah asay u shaqeeyaan asagana ayagu u shaqeey waa la shaqeystaa ma fahameysa tan kale waxaad ogaanaysaa jin ma jiro oo qof bani aadan iska soo galaya ilaa wax weeyaan bani aadan ka sababsada adeegsada meelaha qashan qofka la marayo adkaari waxba laga iskaga akhriso ilaahay bala man gala a'uudu billahi minash shaitani rajiim la yiraahdo inta ka bacdi marka jinki marka ninka saaxiroolaha uu sameeyo jinkii uu baxaya wuxuu aadayaa qofkii
in dhibaatada lagu sameeyo ee gabadha guurka loo diidanaa ayaa muxuu aadaya uu gelaya waay wuxuuna noqonayaa ninkan qofkan jinka ah qofkan la sixiray laazima la socda xaalad walba asoo kusugan la socda aanan ka hadhaynin ilaa uu ay ugu suurta gasho si toos uu jirkiisa u dhex galo xaaladaha marka waxaa ka ratimaya markuu toos u dhex galo 4 xaaladood buu qofka ka dhaxalaya marka inta oo dhan saaxiroolaha soo sameey jinkii uu soo diro jinkii uu soo galo ka bacdi waxa weeyaan 4 xaaladood ba ka ratimaysa 4ta xaaladood maxay yihiin koow qofka waxa uu dareemayaa cabsi fara badan buu dareemayaa bilaa sabab la'aan cabsi fara badan meel ay ka socoto meel ay u socoto aan garanaynin haba ugu sii weynaato geeridii wax la mid ah qofku inuu in badan ka baqo labo xanaaq fara badan bilaa sabab la'aan wuu xanaaqsan 24 hours 7 days waa caraysan saddex halmaan fara badan qaflad baa ku jirta qofkii waa qaafil waa qof qafilan waxba aanan ogeyn oo hilmaan badan xasuus baanan lahayn waa qodobka saddexaad weeyaan yani waa qofka sixir tactiil الزواج loo sameeyay qodobka afraad ugu dambeeyay waxa laga dhaxlay xaaladahaasi qofku wuxuu ku mashquulaya u tafaruqaya gabi ahaanba shahwaadkiisa shahwa kaliya ayuu ku fikiraya 24 saac maskaxdiisu ay guuxaysaa wuxuu u firaaqo sameynaya naftiisa oo dhab wax alla danihiisa oo u soo baabiinaya shahwa inta marka wax kamid ah isku aragtay waa su'aal marka idin weydiyo commentiga igu reeba insha Allah 3-4 qodob aan tilmaamay wax kamid ah isku aragtay qaybtan clip kale ayaa ku xiga aan ka hadli doono hadii Ilaahay daa waxa la yiraahdaa jinku laba xaaladood ayuu ku sugnaanaya ayuu ahaanaya inuu qofkan gabadhan uu galo marka uu dhibo oo mar walba dhibaataynayo markasta ee guur laga soo dalbadana oo la shukaansado oo ka qashqashaaday ay diidma ay soo istaagayso marka ay diidayso waa qodobkaasi waa muhiim gabadhu marka hore way doonaysaa waxa weeyaan waxay la diyaar banahay marka damban waxa weeyaan markii la soo dalbado oo la yimaado ninkii intuu soo aqal qaato oo odayaashii soo diyaarso yiraahdo oo reer ku yimaado way diidaysaa way ka boodi sabab laan bay ugu boodi qodobka labaad oo jinkaasi oo kaga sugan yahay xagga gabadha wax weeyaan imma in aanan oodin inuu qof soo galo qof kale uu soo galo marka wuxuu sameynayaa qofkani inuu muxuu ahaa sixir oo loo yaqaan sixir takhyiil mala'waal oo wuxuu ku fikiraya aanan garanayn maanta oo dhan wuxuu ku fikiraya aanan garanayn wax ma awoodo qofkani guud ahaan markaan soo macnayo ma awoodo talaabo ma qaadi karo qofkani walidaalika marka uu galayaa jinka uu galaya qofka markuu galo wuxuu ku sameeyaa marka sixirka nooca loo yaqaano sixir takhyiil malaysiin waxba la qofka maanta oo dhan waxa uu malaysanaya kharij ha joogo ama daakhili ha joogo wuxuu doon ha ahaado wuxuu malaysanaya marka qofkan uu malaysanayo uu eegay wax weyn ama mustaqbal uu ka rabo waxa loo tusaaleynaya uu arkaya inuu qofkan qof xun fool xumo badan uu yahay bal hada u fiirso jinkiiba wuxuu isku ka sooreynaya oo isku tusaya qofkan ay xiriirka idin ka dhaxaya doonaysa inuu ku soo guursado oo ku guursado qofkan waa qof fool xumo badan weeyaan oo qof fiican ma kuma qalmo saas buu oranaya waxaas ku sooreynaya ka bacdina waswaas buu ku abuuraya marka gabadhi marka meesha waxay ku waayaysaa fursadii ay ku guursan lahayd bay ku waayaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka bareena marka in kuwa saaxiriinta umad baabi'inaya ilaahay ka qabto qof kasta qofka uu soo hormara gabadhan u yimaado oo shukaansado oo guur ka doonaya way diidaysaa haday mabda'iyan ay ogolaatana way ka noqonaysaa hadan bacda ayaa maalmo ka bacdi arimahaas marka waxa sabab ah waswaaska shaydaanku ku hayo marka waan xaalad kale ka sii daran ayaa jirta aan soo socda insha Allah soo wada
كليب كان دتك كلا لو ذاك بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله. 5 qof wax badan lagama rabo 5 qof ku